halkan waa janalka Rafiiq Al-Macruuf. haddii aad ku cusub tahay subscribe taabo deedna gambalelka kuu soo baxayo taabo si aad u noqoto saaxiibka koowaad lana socdo barnaamijyadeena. maanta waxaan idinkaga sheekeynaynaa qiso aad iyo aad u cajiib badan. waxaana la yiraahdaa daayirkii ugu caqliga badnaa wuxuu ahaa 19 jir lagu xukumay xabsi daa'im. waxaa lagu eedeeyay in uu xaday una inkiray sirar badan ay lahayn sirdoonka dalka Mareykanka. waxaa loo bixiyay dawacadii caqliga badnayd. aabihiis wuxuu ahaa oday da ah oo ku noolaa beer uu ku leeyahay meel baadiye ah. wuxuu ku beeri jiray bataatiga iyo qudaar kale. beerta dhexdeeda waxaa ku yaalay guri uu deganaa. da'diisa oo weyn iyo hawsha beerta oo badan wuxuu awoodi waayay in uu beerta ka shaqeeyo. wuxuu warqad u diray wiilkiisa xabsiga ku jiray. wuxuuna dhahay, wiilkayga aan jeclaayow, waxaa niyaddayda ku jirtay in aad ila joogi doontid weligay si aad ii kaalmaysid hawsha beertana aad iiga qabat sida abuurka iyo falista beerta. laakiin maanta ma haysto qof i taakulaynayo. kadibna warqaddii wuu u diray. kadib wiilkii jawaab ayuu u soo celiyay aabihiis. waxaana ku qornaa warqadda sida tan: aabahayga aan jeclaayow, waxaan kuu dardaarmayaa in aad beerta si fiican u ilaalisid, waayo waxaan u cabsanayaa shay muhiim ah oo beerta ku jiro. waan kuu sheegi doonaa shaygaas markaan xabsiga ka soo baxsado. kadibna warqaddii wiilka aabihiis ayuu u soo diray. saacado yar kadib waxay sirdoonkii iyo ciidan badan hareereeyeen gurigii iyo beertii uu deganaa ninkii odayga ahaa. cagaf ayay geliyeen beertii oo dhan. waxay ka waayeen wixii wiilku uu sheegay. mar kale ayuu wiilkii aabihiis warqad u soo diray. wuxuuna ku qoray sida tan: aabahayga aan jeclaayow, waxaa i soo gaartay in beertii si wanaagsan lagugu falay. run ahaantii waxaan awoodi karay waa intaas ee ii ducay aabe. haddaad wax kale u baahatid waad ii soo sheegi kartaa. mahadsanid aabe.